السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك walaalahayga waa idin salaamay meel walba caalamka joogtaan alxamdulilah ilaahay ramadaan kan nabad ha nagu gaarsiiyo ramadaankiisa kale asxaabteeda insha allah maanta waxaa rabaa inaan sameeyo nafaqa caadi ahaynin oo aad iyo aad u macaan oo aad ka heli doontaan sida u sameynaya insha allah ila daawada nafaqadan korkeeda la dhahaa waxaa ka sameynayana waa ujeedin waxaa iska dhaafi kartid waxaa ku dareysidna insha allah ka maarmi kartid iyo waxaa ku bedelin kartid gadaala ka sharaxaya insha allah meeshaas waa ujeedin waxaa ku jirto 9 xabo oo baradhada oo dhexdhexaadka ah iyo ukuna ku daraya iyo maxaa kale ku daraya cheese iyo waxa ku daraya baradhada hadda fiiqaya kulligeed baradhadan waa soo dhaqay maxaa la dhahaa dhoobada oo baradhada yani markii la soo gooyo baradhada oo ku dhegdhegan waa ka soo hoolay buraasha ku soo xoqay baradhadii oo dhan waa nadiif kulligeed waan soo dhaqay haddana maqaarka ka fiiqaya dhamaanteed waxa ku fiiqaya vegetable peeler waa ujeedin geedka oo yani lagu fiiqo maxaa la dhahaa qudaarta lagu fiiqo mindiya ku fiiqan kartaa haddii aad rabtid oo aadan haysanin vegetable peelerka ciyow dhaqso ku fiiqaya howl fududeeyo waaye insha allah haddii aadan haysanin soo gado haddii aad heli kartid raadi insha allah suuqa supermarketyada laga helaa oo maacunta lagu gado kasoo raadi soo gado insha allah wax walba ku fiiqin kartaa baradhada iyo wixii la fiiqayo dhan faante waa ujeedaa marka baradhadan waa wada fiiqaya kulligeed kadibna waan jarjaraya waa arki doontiin baradhada si fiican iskaga fiiq nadiif ka dhig haddii aad baradho badan aad sameynaysid dad badan aad u sameynaysid biyo kusii dhexrid waayo baradhada ciyooy madoobaanaysaa ma faante madoobaad ay ka noqonaysaa marka biyo iskaga sii dhexrid anigu waa boobsiinaya wax yar aan sameynaya inta ujeedin baa sameynaya intaasaan deeqdo marka hadda waan jarjaraya mindiyaan soo qaataa ku jarjaraya kulligeed si isla eg aan wada jarjaraya ujeedin sababta waxay tahay oo si isla eg aan ugu jarjaro xarba hal mar in ay isla wada bislaato si waaweyn ma u jarjaraayo maxaa yeelay si waaweyn haddii aad u jarjartid maanta dhan aad sugaysaa ilaa ay kaaga karto ma fahant marka isla ekaysii kulligeed si isla egna u jarjar haddii aadan rabin maanta dhan inaad kor taagnaato digsiga jikada ku dhex jirto biyahaas dabka saaran way qabow yihiin waxaan ku darayaa cusbo biyaha ma kululo dabkay saaran yihiin markii baradhada aan ku daro kadib aan dabka u daaraya waxaan rabaa biyaha iyo baradhada in ay hal mar isku karsamaan ma fahante marka hadda baradhada aan ku shubay biyahan way isbeysan yihiin marka hadda waxaan karinaya adiga muddo 20 daqiiqo camal ah tijaabi sida aniga u jarjar si ka yar haddii aad u jarjartid ciyow ay ku bislaanaysa oo ujeedaa fargeetada markii aasas u gasho ay kala jabto way ku bislaatay saxana soo qaadanaysaa mase weelkii adiga markaas ku yaalo oo aad ku hagaajisanaysid hadduu baaqul yahay hadduu saxan yahay saxanka yani waxaan u saarayaa waa weel fidsan waaye markii aan maash gareynayo oo aan burburinayo ay ii fududeynaysaa ma fahanta haddii ay ku taal bateeto maashar oo baradhada lagu maash gareeyana isticmaal yani ani waxaan hadda u isticmaalaya fargeetada waxaan rabaa inaan ku tuso inaad isticmaali kartid fargeeto haddii aadan haysanin baradhada kan lagu maash gareeyo oo lagu jajabiyo فهمت وكاسا يعني بن waxaa yiri hadii la waayo bedelkiisa la helaa marka wakaasa fargeetada iska isticmaal xoogaa waqti dheer ay ku waqti qaadanaya adiga kan loogu talgalay baradhada inuu jijibiyo ayu ku jijibinayo Soomaa hadii aadan haysanin dib malaha baaquligaas ku wada shubaya kulligeed baradhadii oo dhan oo aan soo jijibiyay baaquliga hadda ku wada shubaya wixii baradhada alaabta aan ku darayo dhan way agtaala waa ujeedin waa ukun iyo parsley waxaa la dhahaa baqduunis reexaan camal waa amaleynaya waa kaasa hadaa rabtid kabsar caleen ku darso adi waxaa jeceshaa ku darso waxaan hadda ku daraya ukun hal xabo ukun aan ku daray baradhadan waxay ahayd 9 xabo oo dhexdhexaaday baradhada waaweynin aan yaryareen iska ahayd waa ujeedeen qiyaas ahaan inta baradhada ay la ekeed kadibna waxaan ku darayaa hadduu ilaahay karaale noqdo waxaan ku darayaa subagiyaan ku daraaya subaga 6 xabo oo subag ah ku dareysaa haddii aad rabtid subag aad rabin iska dhaaf wax yar oo bur ah ku darso 3 qaado bur camal ku bedelo haddii subaga uu ku dhibaayo oo aadan rabin waa lagu macaaneynaa dhadhan fiican u yeelaya wax yar 3 qaado camal oo caano ah ku daray ukunta haddii ay ku dhibaysan ukun iska daa batarkaaga iyo subagaaga iyo iskaga darso iyo intaada kale iyo bur yar ku dar
haddii aad rabtid. Haddana waxaan ku daraa barbarooniga shiidan waaye. Waa kaasaa. Waxaa kaloo ku darayaa hadda parsleygi. Reexaana la dhahaa u maleynaya parsleyga. Haddii aan qaldaneyn reexaana la dhahaa, baqduunisna waa la dhahaa. Insha Allah hoos kusoo qora dadka kale idinka faa'iidaan waxa lagu dhaho parsley af Soomaali saxan, okay? Keena insha Allah hal idinka faa'iido. Waa isku qasaaya waxa dhan waa ujeedin asxaabteeda. Marka hadda waxaa rabaa kulli inaan isku wada qaso si ay iskugu milmaan. Waxaa idin soo xasuusinayaa haddii aad cusub tahay subscribe saar. Soo dhawow gambaleelkana fura. Gambaleelka haddii aad furi weysid waxba kuma soo dhacayo. Rabadaanka waxyaabo badan aan soo wadaa insha Allah ka faa'iideysta. Meeshan waxaa ku jiro cheese waaye. Cheeseka hadda ayaa ujeedeen oo saarnaa meesha aan soo googooyay waaye. Firinjeerkan kasoo bixiyay hadda wuu iigu sii jira intaan sii hagaajinaya alaabta kale. Waa kaasaa dhaxdan ka gelinaya. Haddii aad rabtid cheese shiidan maaragtay aad ku qasi kartaa markii aad qasaysid baradhada, ma fahantay? Marka hadda waa kuuskuusaya dhammaanteed saasaa u sameynaya. Dhowr xaba idin tusaya insha Allah saa u aragtiin oo aad u fahantiin insha Allah hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Xabad kale aan soo qaaday saa idinkugu sheegana cheese shiidan haddii aadan rabin hawshaan badan cheese shiidan ku dhex qas markii aad qasaysid baradhada aad jajabisid kadib ukuntii aad ku daraysid. Xoogaa yaroo cheese maxaa la dhahaa farmaajo shiidan ah. 1 saac ama 2 saac iskaga darso. Waa kaasaa alaabtii oo dhan waa kuuskuusay meeshaasaan dhigay. Hadda meeshaan waxaa ku jiro waa ujeedin bur ku jiro 1 koob oo bur ah iyo 2 xabo ukun ah iyo rootiga shiidan. Rootiga shiidan oo rooti la soo qalajiyo shiidan waaye. Haddii aad rabtid inaad aragtid fiidiyoyaasheeda dib ugu laabo anigoo sameynayo baasto macaroni iyo cheese anoo sameynayo aan ka hadlay oo aan sharaxay sida loo sameeyo rootiga shiidan. Marka waa soo qaadaysaa 1 xaba soo qaadanaysaa oo baradhadi ah. Waxaa ku dhex ridaysaa burki si ay hadhow saliid aysan kaaga gelin ay kuugu xiranto, ma fahantay? Si jilaato ay kuugu noqoto. Kadibna ukuntii way kusii dhejinaya burkay kusii dhejinaya. Haddii aad rabtid ukun ah xasaasi ku tahay caano meeshaas ku shubo aniga ukunta ka isticmaalay. Dad ay dhibaysaa jirto oo ku ah mise familkaaga qof ka mid ah haddii uu allergic ku yahay fadlan ha isticmaalin ukun. Waa kaasaa marka rootigina wuu kusii dhejinaya. Gaduuduna ka dhigaya qurxu ka dhigaya rootiga shiidan. Waa fahanteen. Dhowr xaba insha Allah sameynaya. Daawada arka sameysta waa ka heli doonteen run ahaantii haddii aad tijaabisiin basbaaskaaga u samaysatid. Habeenada qaarkood aad iskaga tuuranaysaa. Aad iyo aad u macaan tahay. Tijaabi insha Allah. Waa kaasaa marka rootigii hadda dhexda ka geli shiidnaa ujeeda saas ku wada samee. Waxa saliiddi si aysan kaaga gelinaysaan loo sameynayaa. Ma bedeli kartid qaybtan stepkan step aad bedeli kartid ma aha. Waa inaad saas u sameysaa. Kulligiis aad burka iyo ukunta iyo maxaa la dhahaayay iyo rootiga shiidan inaad kulligood aad marmarisid oo aad ku sijilaataysid oo aad ku xirtid waaye. Haddii kale baradho saliid miiran ah aa meesha kaaga soo baxayso wayna kaa halaabaysaa, ma fahantay? Saliidda haddii aadan jeclaynina waa duban kartaa. Ovenkaa gashanaysaa aa ku dubanaysaa. Gadaal aad idinkaga sharaxayaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Saasaa sameynaysaa. Waa fahanteen soo maaha? Hadda qof walba wuu fahmaa u maleynaya sidaa u sameeyay. Saliid kuleyl ah ku dubaysaa. Saliidda sambuuska camal ah kuleylkeeda geynaysaa. Waa ku dubaysaa markay kuu gaduudatana diyaar waaye. Haddii aadan rabin saliid inaad ku dubto ovenkaaga waxaa geysaa 400 oo Fahrenheit gee. Markuu kuu kulaado 12 daqiiqo ku dub. Haddii aadan isticmaalin Fahrenheit oo Celsius isticmaashina 200 u gee 12 daqiiqo dub. Haddii miiskaaga rabadaanka maxaa la dhahaa maalintay kaa qabato miiska anfurta gees ka saaro. Haddii laga baxana rabadaankan maalintay kaa qabato casriye ka dhigo. Dadaa waagi hore weydiin jiray maxaa lagu cayilaa? Hadda baradho waa lagu cayilaa sameysta waa saasay ku soo baxday dheendheenay ku soo baxday. Waa kaasaa dhammaantiin kheyra idin rajeynaya. Haddii aad cusub tihiin subscribe gareeya soo dhawaada. Kulligiin waa idin salaamaya asxaabteeda hore asxaabteeda cusub. Assalaamu calaykum. Wixii su'aal aad qabtidna insha Allah hoos ku soo qor iyo ra'yigaaga.